Soomaalidu waxa ay tiraahdaa inta aadan falin ka fiirso. Hubsiimo hal ayaa la siistaa. Intaasoo dhan micnaheedu waxa loola jeedaa wax waliba oo aad samaynayso inta aadan ku dhaqaaqin ka hor iska hubi si aadan barrito uga shalayn wixii aad samayso oo laga yaabo in ay geystaan dhibaato ka badan wixii adiga aad dareemaysay. Waxaa laga yaabaa wanaag uu kuu sameeyay walaalka inay ka dhalatay guusha aad maanta adigu haysato ama sabab u noqotay inaad heerkan maanta aad joogto soo gaarto. Nin ayaa waxaa haleelay abaar aad u xun. Waxaa ka dhammaaday dhammaan xoolihii uu haystay. Wuxuu soo fariistay meel cidla ah iyo mooro maran. Ma haysto haba yaraatee wax uu naftiisa iyo carruurtiisa ku dabaro. Waxay dantu biday inuu meeshii isaga haajiro si uu u raadsado nolol ugu yaraan uu nafta ku sii haysto. Caadada waagaa jirta waxay ahayd qofkii abaaru soo wajahdo oo xooluhu ka dhammaadaan inuu u jahaysto afka aadiyo halka uu isleeyahay waxaad ka heli kartaa dadku caawiya oo dhibaatadan kaa dulqaada alla ka sokow. Waxayna duruuftu ku qasbi jirtay dadku inay kala doortaan tuulooyinka ugu dhow. Wuxuuna xulan jiray qofka meesha uu aaminsan yahay inuu ku badbaadi karo. Ninkan abaartu haleeshay xooluhu ka dhammaadeen waxa uu toos u soo aaday meeshuu aaminsanaa. Waxa uu yimid tuulo. Tuuladaasi waxaa deganaa nin hanti aad u fara badan leh. Xoolihiisu tiradu ay dhaafeen, ari fara badan, geel iyo lo'ba Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu deeqay. Isaga ayuu toos u soo abbaaray markii uu soo ogaaday inuu yahay ninka ugu hantida badan leh tuulada. Waxa uu ku yidhi, walaal, magaciigu waa Hebel. Waxaan ka imid tuulada. Waxa ay haleelay balaayo. Abaar ayaa igu soo habsatay. Carruurtaydiina afka ayaan ku sitaa. Walaal, waxaan kaa codsanayaa alla ka sokow inaad igu caawiso wax aan noloshayda ku sii dabarto. Ninkii hantilaha waxa uu ku yidhi, noocii aad doonto xoolahayga intii aad doonto ka qaado oo aad isleedahay waa ay kugu filan yihiin. Haddii aad doonto xoolahaasi halkan kula noolow oo dhinacayga soo deg, halkan ku dhaqo. Haddii aad doontana la aad halka adigu aad jeceshahay. Ninkii maskiinka ahaa ee aan waxba haysan farxad darteed ayuu isku dhex yaacay. Wuxuu dhex galay arigii. Waxa uuna qaatay tiro aad u fara badan oo markaasi isaga iyo qoyskiisa ku filnaa. Waxa uu xoolihii la aaday tuulo kale oo barwaaqo ahayd. Halkii ayuu degay. Wuxuuna ka samaystay nolol fiican. Waxa u batay xoolihii. Wuxuuna ka mid noqday taajiriintii tuuladaasi. Muddo kadib waxaa sidoo kale abaar ku dhacday ninkii hantida soo siiyey ee badbaadiyey. Marka waxa uu isagana garan waayay halka uu wax u doonan lahaa. Isagoo wareersan, carruurta hor joogaan, wax alla wixii geel, lo iyo ari u lahana ka baaba'een, ayaa waxaa qalbigiisa ku soo dhacay in uu jiray nin abaaru soo heshay oo u yimid oo uu badbaadiyey, hanti fara badanna siiyey. Magaciisii ayuu xusuustay. Wuxuuna ogaa halkii uu guuray. Wuu soo raadiyey. Wuxuuna yimid tuuladii ninkii uu deganaa. Markii uu dadku waraystay, waxaa loo sheegay in tuulada waqooyigeeda qasriga ku yaallo ee ilaaladu ku hareeraysan tahay uu ninkaasu leeyahay. Ninkii aad ayuu u farxay markii uu maqlay hadalkaasi. Wuxuu u yimid nimankii ilaalada ahaa ee qasriga joogay. Wuxuu u sheegay magaciisa iyo inuu u baahan yahay inuu la kulmo ninkan qasriga iskale. Nimankii shaqaalaha waxay u sheegay inuu sugo warbixintu ay gaarsiin doonaan, jawaabtana uu heli doono. Nasiib darro, ninkan oo qalbigiisa ay ku jirtay in la soo dhoweyn doono, qasriga hore loo gelin doono, meel munaasabo fiican la gaarsiin doono, hanti fara badanna lagu abaalmarin doono, ayaa jawaabtii uga timid ninkii qasriga iska lahaa waxay ahayd, ilinka ha ii dhaafo, ma aqaane. Wuu aamini waayey hadalkaasi. Wuxuu ku yidhi, war ku laabta oo u sheega inaan ahay Hebel, ninkii hantida iyo xoolaha fara badan soo siiyey waagii abaartu ay haysay ee carruurtu ka daba ooyeysay. War u sheega inaan ninkaasi ahay, abaal fara badanna ku leeyahay. Waxbaad qaladeene, ninkaasi aad buu ii soo dhoweyn lahaa. Nimankii shaqaalaha mar kale ayay ku laabteen. Nasiib darro, waxaa markaana u yimid ninkii shaqaalaha ama ilaalada madaxda ka ahaa. Wuxuuna ku yidhi, amar waxaa la igu soo siiyey haddii aad mar dambe sii taagnaato inaan dhagaha kaa garaacno. Ka soco meesha. Cid ku taqaanaaho iyo waxa uu ninkaasi kaa og yahayna ma jirta, isaga tag meesha. Ninkii oo niyad jabsan, murugaysan, qalbigiisuna aamini laayahay waxa meesha ka dhacay, ayaa aad iyo aad inta uu nimankii u fiiriyo ku yidhi, walle
dad bin'aadan ah layskuma halleeyo, dad iyo duurba waxaadan ka filayn ayaad kala kulantaa. Wuu iska dhaqaaqay isagoo aad iyo aad u niyajabsan. Markaasuu tuuladii fiiriyey, go'aanna ku gaaray inuusan dib ugu soo noqon. Wuxuu u dhaqaaqay dhanka koonfureed oo ay ka jirtay tuulo kale. ninkii oo sii socda naftiisana la sheekaysanaya ayaa mar qura waxay indhihiisu qabteen 3 nin oo waddada bartamaha ka taagan u eg tuuga isaga sugaysa. laakiin waxa walwala uu ka qabay haba yaraatee ma jirin, sababtoo ah xilligaasu ma jirin tuugo wax disho, wax laga dhaco oo ninkaasu sitayna ma lahan. markii uu raggii u dhawaaday ayay ku yiraahdeen, war istaag, war xaggee u socotaa? wuxuu u sheegay in uu ninkaasu ku wajahan yahay tuulo kale. nimanku waxay ku yiraahdeen, niyahow waxaad u muuqataa nin aad u rafaadsan, dhibaato fara badanna ay haysato, u eg qof dayn fara badan lagu leeyahay oo ka soo haajiray gurigiisii. waxa uu sheegay duruuftii haysay. markaa kadib waxa ay siiyeen 3 dhagax oo ay ku sheegeen inay yihiin kuwa qaali ah, qiimo fara badanna goynaya. tuulada haddii uu dib ugu noqdo halkaasi uu kaga iibsan karo lacag fara badan. waxa uu dhagxaantii keenay suuqii. waxa uu la fadhiistay meel gees ah. markii uu cabbaar qiyaastii 20 daqiiqo fadhiyey ayaa waxaa u timid islaan waayeel ah. waxa ay ku tiri, imisaad iibinaysaa? isaga ma yaqaano inta la iibiyo dhagxaantan iyo waxa ay yihiin. waxa uu ku yidhi, wixii aad awoodda isii. markaaba islaantii waxa ay siisay lacag aad u fara badan. lacagtii markii uu arkay caqligiisa wuu aamini waayey, sababtoo ah lacagtaas waxa ay ka badneed hantidii uu hore u haystay. isaga oo aad u faraxsan qoslaya ayuu suuqa bartamihiisa istaagay. markaasuu dadkii wuxuu ku yidhi, wardadow wari dhegaysta, kelmadahan wayda anfici doonaan. inta aad nooshihiin qof bin'aadana ha aaminina, qof bin'aadana ha soo dhowaysanina. qofka aad rabtaa inaad wax siisaan siiya wax yar uu caawa ku seexan karo. waayo qof aan horay u caawiyey wax badanoo wanaaga u sameeyey ayaa albaabkii iga xirtay oo aad ii dayacay. waana ninka qasriga weyn iska leh. aniga ayaa faqiirtinimadii iyo baahidii uu ku jiray ka soo saaray. maanta oo aad u dhibaataysnaana wuu ii dayacay. kama uusan fiirsan hadalkaasi. ma oga waxan oo dhan inay yihiin wax uu soo abaabulay ninkii. arrintii ayaa loo sheegay ninkii qasriga iska lahaa. waxa uu ku yidhi, ii keena. waa loo keenay. wuu salaamay. kadib wuxuu ku yidhi, dhegayso, waxay soo gaartay dhagxaantii markii aad iibsato lacag fara badan aad heshay inaad hadalkaa tiri, ma runbaa? wuxuu ku jawaabay, haa. kadib ayuu wuxuu ku yidhi, dhegayso, aniga waxaan kuu imid anigoo gaajo i hayso, rafaadsan. sadaqaad i siisay. hanti yaroon ku noolaado ayaad i siisay. hantidii ayaan soo qaatay, suuqa ayaan geeyey, waan iibiyey, ganacsi ayaan u beddelay. maantana hantidan aan haysto ganacsigaan ka sameeyey. adiga oo intii aan ogaa hanti ahaa haystay, haddii aad ganacsiga aqoon lahayd maanta ma baahateen. sidaas daraaddeed aniga waxaan ku baray ganacsiga. nimanka 3 ee meesha kuu taagnaa aniga ayaa kuu soo diray, waa shaqaalahayga. dhagxaanta ay kuu dhiibeenna aniga ayaa u soo dhiibay. islaanta waayeesha ee kuu timid ee suuqa kaaga iibsatayna waa hooyaday, aniga ayaa kuu soo diray. lacagtan faraha badan le aad ku faanayso ee aad inaad ganacsiga ku hesho u malaysana anigaa ku siiyey oo hooyaday u soo dhiibay. dhagxaantana waa kuwaa meesha yaal, horay u qaado haddii ay wax kuu goynayaan. ma ahan haba yaraatee kuwa wax taraaya. hadafkaygu waxa uu ahaa inaan ku baro sidii aad u ganacsan lahayd. laakiin waxaan ku leeyahay, inta aadan falin ka fiirso, waayo hobsiimo halgeel ah ayaa la siistaa. haddaba daawade, hobso inta aadan falin. xaqiiji wax walboo laguu sheego ku soo gaara ama aad maqasho. hubi wax weliba noloshaada inta ka harsan ay suuragal tahay inay saameyn xun kugu yeeshaan inta aadan go'aan qaadan. mahadsanidin.